asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow. Warbixintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa markii uu madaxweynihii hore ee Ciraaq Allah u naxariistay Saddam Hussein uu bahdilay gumaystaha Israa'il uuna ka burburiyey saldhigga ugu muhiimsan Ramat David. Tallaabadaas uu qaaday halyeygii dalalka Carabta iyo Islaamka waa mid aan weli ka masaxmin maskaxda gumaystaha, waana sababihii keenay in Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ay ku duulaan Ciraaq sanadkii 2003 si ay u burburiyaan dowladdii Saddam Hussein. balse intaan u gudagelin faahfaahinta warbixintan xiisaha leh, like saar muuqaalka si ay dhiirigelin noogu noqoto. Sidoo kale haddaad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, subscribe saaro channelka, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan warbixinada xiisaha leh ee aan halkan kusoo gudbino sanadeen. Kadib muddo bilo ah oo ay xiisaday ka dhex taagneyd dalalka Carabta iyo gumaystaha Israa'il oo markaas isbiday awood xad dhaaf ah, doonayayna in uu dhul balaarsi sameeyo oo isku fidiyo dalalka deriska la ah Falastiin sida Masar, Jordan, Suuriya iyo Lubnaan, taasoo dalalka Carabta ku riixday in ay u diyaargaroobaan duulaanka iyo damaca Israa'il. Laakiin intii ay diyaargarowga ku jireen, Israa'il ayaa weerar kadis ah ku qaaday iyadoo kicisay 188 ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka, waxayna duqeeyeen garoomada cirka ee dalalkaas, gaar ahaan kuwii ay yaaleen diyaaradaha dagaalka ee ay lahaayeen dalalka Masar, Jordan, Suuriya iyo Ciraaq. waxaana sidaas ku bilowday dagaalkii loogu magac daray dagaalkii 6 maalmood ama dagaalkii 1967, halka Carabtuna ay ugu yeeraan dib u dhacii Juun sababaha dagaalka. galabnimadii 5 Juun 1967, koox ka mid ahayd diyaaradaha dagaalka gumaystaha Israa'il ayaa bilowday duulaan militari oo ay ku beegsadeen saldhigga cirka ee Al-Waliid oo loo yaqaanay H3 oo u dhow magaalada Rutba ee xuduudda Jordan. muddo nus saac gudaheed ah, diyaaradaha Israa'il ayaa burburiyey 11 diyaaradood oo ciidamada cirka Ciraaq ay lahaayeen. Sidoo kale waxay burburiyeen minaaradaha ama burjigii garoonka laga hageeyey. waxay kaloo burburiyeen raadeeradii iyo nidaam difaaceedyadii hawada. isla markii uu soo dhammaaday weerarkaas, madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein wuxuu amar ku siiyey hoggaanka ciidamada cirka Ciraaq inay qaadaan weerar ba'an. weerarkaasoo cuuryaamiyey dhammaan garoomada diyaaradaha iyo qalabka hawada ee Israa'il. taliyihii ciidamada cirka ee Ciraaq ee xilligaas sarreeye guud Jassim Maxamed ayaa soo saaray amar ku socday taliyaha saldhigga ciidamada cirka Xabaniya Xaamid Shacbaan, waxaana amarka uu ahaa in 24 saac gudahooda ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan duulaanka ay Israa'il ku burburisay diyaaradaha dagaalka Ciraaq. sidoo kale waxaa la faray in howlgalka uu noqdo mid aad u burburiya oo naafeeya saldhigyada ciidamada cirka ee Israa'il. howlgalka waxaa loogu magac daray howlgalkii Hilaaca. markii hore qorshaha weerarka ee saraakiisha ciidamada cirka Ciraaq wuxuu ahaa in la weeraro 5 saldhig oo ciidamada cirka Israa'il ah, balse markii dambe waxaa lagu soo koobay in ay bartilmaameedsadaan saldhigga ciidamada cirka ee Ramat David. saldhigga Ramat David ayaa ku yaala waqooyiga Falastiin oo ay Israa'il xoog ku haysatay, wuxuuna aad ugu dhow yahay saldhiggan deegaanka Jiniin. haddaba Ciraaqiyiintu maxay u doorteen saldhigga Ramat David? xilligaas awoodda militariga Israa'il waxay u qaybsanayd 3 gobol, waxayna lahaayeen 6 saldhig oo kuwa cirka ah. mid ka mid ah saldhiggaas wuxuu ku yaalay dhinaca waqooyi ee Falastiin, waana saldhigga Ramat David. labada kale waxay ku yaaleen bartamaha, 3na koonfurta. sidaan soo sheegnay, saldhigga waqooyi waa saldhigga Ramat David, wuxuuna hoy u ahaa 3 meelood awoodda ciidamada cirka ee gumaystaha. xilligan la joogana waxaa ku sugan 4 meelood awoodda ciidamada cirka ee gumaystaha. sababta kale ee uu Saddam u doortay in uu burburiyo saldhiggan waxay ahayd in ay ka soo duuleen inta badan diyaaradaha fuliyey weerarkii lagu burburiyey garoomada iyo diyaaradaha dagaalka ee Ciraaq, Jordan, Masar, Suuriya iyo Lubnaan. bedka uu ku fadhiyo saldhiggan waa 8 kiilomitir. waxaa kaloo ku yaala 3 ranwey. sababahaas oo la isku geeyey ayay Ciraaqiyiintu u doorteen in saldhiggan uu u noqdo midka ugu wanaagsan ee ay u argudan kareen weerarkii Israa'il. waxaa kaloo xusid mudan in saldhiggan ay ka duuleen diyaaradihii weeraray xarumihii nukliyeerka Ciraaq sanadkii 1981. marka haddii la cuuryaamiyo saldhiggan, markaas waxaa laga takhalusay mid ka mid ah khataraha ugu waaweynaa ee Israa'il, waxaana shartiisa ka nasanaya inta badan dalalka Carabta ee deriska la ah Falastiin, maadaama Tel Aviv ay weynayso 3 meelood awooddeeda ciidan ee cirka. dhinaca kale, ciidamadii cirka Ciraaq ee xilligaas waxaa ka go'aneed in ay jawaab la mid ah ka bixiyaan weerarkii ay Israa'il ku qaaday, waxayna u diyaariyeen ilaa 4 weerar oo dhinaca cirka ah, iyagoo adeegsanaya 4 ka mid ah diyaaradaha fuliya duqeymaha istiraatiijiga ee loo yaqaano Tupolev Tu-16. mid walba ka mid ah 4tan diyaarad ayaa siday 12 bambo oo nuuca FAB 500 ah.
waana bambooyin sameeya qarax aad u daran. sidoo kale 40 diyaaradood ayaa duulimaadkooda waxaa loo qorsheeyey in ay 15 daqiiqo kala dambeeyaan. sidoo kale duuliyaasha waday waxaa lagu amray in marka ay gaaraan saldhigga cirka mifraaq ee Jordan in ay hoos u dhigaan joogga ay ku duulayeen si ay uga fogaadaan inaysan qaban raadeerada Israa'iil, kadibna ay u jihaystaan dhankaas iyo saldhigga Ramaad David ee bartilmaameedka u ahaa in ay duqeeyaan. waxaa kaloo duuliyaasha la faray in mid walba uu isticmaalo waddo gooni ah oo aysan hal qad isla isticmaalin, si marka ay dib u soo laabanayaan ay u jahwareeriyaan haddiiba ay dhacdo in ay soo dabagalaan diyaaradaha dagaalka Israa'iil. sidoo kale amarka la siiyey duuliyaasha wuxuu ahaa mid adag. waxaa lagu amray in aysan dib u soo laaban karin iyagoo soo fulin duqeynta saldhigga Ramaad David qiimo walba ha ugu kacdee. markii diyaaradda koowaad ay soo fulisay duqeynta soona faarujisay 12 bambo ay waday, waxaa hawada Israa'iil gashay diyaaradda labaad iyadoo isticmaalaysa khad ka duwan midkii hore, waxayna saldhigga gaartay 15 daqiiqo kadib weerarka koowaad. diyaaradda koowaad waxay saldhigga ka soo gashay dhinaca bari, tan labaadna dhinaca galbeed. duuliyaha koowaad ee weerarka koowaad fuliyey ayaana markii uu laabanayay hore u sii watay raxan ka mid ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil si uu ugu mashquuliyo saaxiibadiisa kale ee saddexda ahaa. ficil ahaanna kaartadaas waa u shaqaysay oo iyaga si nabadgelyo ah ayay howlgalka u soo fuliyeen marka laga reebo diyaaradda labaad oo la burburiyey wakhtiga la fuliyey howlgalka. subaxnimadii bishii Juun 6, 1967 afarta duuliye ee weeraray saldhigga ciidamada cirka ee Ramaad David waxaa hogaaminayay Faaruq Yunis. waxaa markii ay gaareen hawada saldhigga mifraaq ee Jordan ay hoos u dhigeen jooggii ay ku duulayeen si ay ugu dhuuntaan raadeerada Israa'iil. diyaaradda koowaad ayaana gashay hawada Israa'iil, gaar ahaan saldhigga Ramaad David dushiisa saacaddu markay ahayd 5:58 daqiiqo oo subaxnimo, wuxuuna ku faarujiyey dhammaan bambooyinkii saarnaa diyaaradda uu waday. wuxuu howlgalka kusoo gabagabeeyey 1 daqiiqo oo keliya. duuliyahan iyo diyaaraddiisa ayaana si nabadgelyo ah dib ugu laabtay saldhigga mifraaq ee Jordan. wax halis ahna lama uusan kulmin. diyaaradda labaad waxaa duuliye ka ahaa duuliye sare Xuseen Al-Maxamed. wuxuu saldhigga Ramaad David ka soo galay dhinaca waqooyi ee Falastiin, gaar ahaan deegaanka Tulkaram, laakiin diyaaraddiisa inta aysan soo gaarin hawada Ramaad waxay hawada isku heleen 2 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil, gaar ahaan nooca Miraj, balse si xirfadaysan ayuu isaga difaacay wuuna ka takhalusay markii uu soo riday. wuxuu sii watay safarkiisa ilaa uu ka dul tagay saldhigga Ramaad David, kadibna wuxuu ku soo tuuray ama ku faarujiyey 12 bambo ee uu waday, laakiin duuliye Xuseen Al-Maxamed si nabadgelyo ah dib uguma laaban. waxaa soo noqoshadiisii hawada ku heshay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo gantaal la heshay, balse daqiiqadihii ugu dambeeyey noloshiisa inta aysan dhicin diyaaraddii uu waday wuxuu si nafhurnimo ah isugu qarxiyey oo uu diyaaradda ku dhuftay saldhig ay ciidamada Israa'iil ku lahaayeen meel u dhow saldhigga Ramaad David, sidaas ayuuna ku shahiiday. saacaddu markay ku beegnayd 6:58 daqiiqo duhurnimadii waxaa soo idlaaday howlgalkii Hilaaca ee ay fuliyeen duuliyaasha geesiyaasha ahaa ee Ciraaq. duuliyaashaas reer Ciraaq ayaana ciidamada cirka gumeystaha ku qasbay in ay wax badan ka bedelaan istiraatiijiyadoodii ku aadaneed in ay weeraraan dalalka Carabta, waxayna ku qasbeen in ay difaac galaan oo ay ilaashadaan saldhigyadooda iyo garoomadooda diyaaradaha. natiijadii ka dhalatay weerarkaas, howlgalkii Hilaaca ee ay fuliyeen duuliyaasha Ciraaq wuxuu wax badan ka bedelay xisaabaadka iyo qaabkii uu socday dagaalka u dhexeeyey Carabta iyo Israa'iil. sidoo kale howlgalkan wuxuu aad u yareeyey khasaarihii soo gaaray ciidamada Carabta, waxaana lagu dilay 44 ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka gumeystaha. waxaa kaloo lagu burburiyey 33 ka mid ahaa diyaaradaha dagaalka Israa'iil. adigana daawanaya haddaad nala soo gaartay ilaa dhammaadka, weli horay ma maqashay xogta howlgalkan Hilaaca ee naafeeyey ciidamadii cirka Israa'iil ay ilaa iyo maantadan qariso? sideese u aragtaa howlgalka nafurnimada ahaa ee uu sameeyey duuliyaha labaad?